wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii hotel SYL iyo madaxtooyada Soomaaliya oo laga maqlahayo israsaasayn xoogan sidaad hore la socotaanba waxaa israsaasayn xoogan laga maqlahayo gudaha hotelka SYL ee magaalada Muqdisho ee ku yaala agagaarka madaxtooyada Villa Soomaaliya halkaas oo la rumaysan yahay in ay galeen maleeshiyaadka al-shabaab xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah wasiirkii hore ee amniga ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ka soo baxsaday hotelka ay u xaqiijiyeen in al-shabaab ay soo weerareen hotelkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in uu jiro khasaare xoogan inkastoo aan la haynin tirada rasmiga ah sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay dagaalyahanadeeda ay galeen hotelka kana dhex wadaan rasaas xoogan iyagoo beegsanhayo shaqaalaha u shaqeeya dawladda Soomaaliya askar ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa ilaalada hotelka ayaa la tacaalaya weerarka ka socda gudaha hotelkaasi sidoo kale ilo xogagal ayaa sheegayay intaan hotelka weerarka lagu qaadin in lagu soo bandhigayay buug halkaasna ay ku xaniban yihiin dhalinyaro ka qayb galahayay bandhiga buugaasi aadan cali muumin oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho war uu ku soo qoray bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in laba ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday halkaas lagu dilay dhanka dawladda ciidanka sida khaaska u tababaran ee Haramcad ayaa ka qayb qaadanaya samata bixinta iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab ee soo weerartay hotel SYL ee magaalada Muqdisho oo ka soo horjeeda madaxtooyada Soomaaliya xogtan iyo wixii ka soo kordhaba waxaad kala socon doontaan Hubal Media saacadaha soo socdo hadduu alle qadaro ku xidhnow oo la soco Hubal Media iyo xogta hotel SYL oo idin soo tamin doono hadba wixii markaasi soo kordho